Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Engineer Jacfar oo videoga ku sharixi doona sidaynu Python iyo PyCharm usoo download garayn lahayn oo u install garayn lahayn si aan hadhowto markaa u isticmaalno markaan baranayno sida loo program gareeyo Python. Marka haddii aad Google-ka ku dhufato hadaad ku qorto Python download waxaa kusoo baxaya website-kan markaad ku dhufato aad download-ka tagto waxaad markaa dooran kartaa operating system aad isticmaalayso Windows ama macOS maadaama aan Windows isticmaalayo waxaan ku dhufanayaa button-kan download marka waqti buu qaadanayaa uu ku download garoobo software-ka intaynu sugayno Python-ka waxaan soo download garaysan karnaa isagana PyCharm marka haddaad Google garayso PyCharm isna waxaa kusoo baxay website-kan ku dhufo website-ka waxaad markaa download garaysaa community-ga oo maadaama uu free yahay open source ah kaasaan ku dhufanaynaa isna waxaa bilaaban doona download-ka ayaa bilaaban doona oo waqti buu qaadan doonaa okay downloading-ka markuu dhammaado waxaad ku dhufanaysaa markaa Python-ka ayaad marka hore install garaynaysaa marka haddaan Python ku dhufano waxaa bilaabanaya installation-kii waxaa muhiim ah inaad ku dhufato halkaas add Python 3.9 to the path 3.9 waa version-ka marka waxaa laga yaabaa markaad adigu download garaynayso inaad version ka dambeeyay kan imika download garaynaya aad download garaysato laakiinse waa muhiim inaad boxka aad select garayso kabacdina waxaan odhanaynaa install waxaa halkaa ka bilaabanaya installation-kii Python okay installation-ka markuu dhammaado waxaa kusoo bixi doona setup was successful kabacdina waxaad odhanaysaa close inuu marka Python ku shaqeynayo waxaad ku test garayn kartaa ama ku eegi kartaa waxaad raadinaysaa IDLE idle waa aan sharixi doonaa waa editor la socda Python-ka marka markaad ku dhufato waxaa kusoo baxaya idle-kii haddaad markaa ku qorto matalan 2+2 waxaa kusoo baxaya halkaas 4 taas micnaheedu waxa weeyaan idle-ku ku shaqeynaya laga yaabo background-kaagu inuu caddaan yahay laakiinse tan waxayna tusaysaa marka inuu idle-kii shaqeynayo okay Python-kii waan install garaynay waa inoo dhammaaday waxaa muhiima marka inaynu haddana IDE install garayno okay IDE waa maxay IDE waa integrated development environment waa program kuu fududeynaya inaad qorto luqadii aad markaa rabtay inaad program garayso sida Python ama C# ama JavaScript marka IDE waxaa jira mid la socda Python waxaa la dhahaa idle waa kaynu horey u aragnay waxaa kaloo jira oo caan ah Visual Studio Code oo Microsoft ay samaysay oo aad loo isticmaalo PyCharm ayaa isagana dadka inta badan Python program gareeya ay aad u isticmaalaan waa maxay faa'iidada IDE-ga faa'iidooyinka ugu weyn waxa weeyaan marka hore code-kii ayuu kuu saxayaa analysis ayuu ku sameynaya hadduu wax kaa khaldan yahay wuu kuu sheegayaa waxaad kaloo oon baran doonaa sida code-ka loo eego hadday wax ka khaldan yihiin wax la dhaho debugging marka wuxuu wataa graphical debugger ayuu wataa si fudud ayaa markaa ku heli kartaa khaladaadka ku jira programka haddii aad sameynayso testing wax la dhaho unit testing isna waxa weeyaan waa already integrated wuu ku dhex jiraa wuxuu la socdaa editor-ka ayuu la socdaa ama IDE-ga ayuu la socdaa marka wuxuu kuu fududeynaya inaad programyadii test garayso markaad programka qorto waxaad ku save garayn kartaa programkaas waxaa la dhaho version control GitHub for example tusaale ahaan ayaad ku save garaysan kartaa codekaas marka editor-ka wuxuu kuu fududeynayaa inaad la xidhiidho codekaagii aad ku shubto GitHub version control systemkii aad kana soo qaadato marka ayuu kuu fududeeya wax la dhaho interaction it makes the interaction between the two environments easier marka wuxuu kuu fududeynaya inaad la xidhiidho meeshaad ku save garaysanaysa codeka kana soo qaadato waxaa kaloo kuu fududeynaya inaad markaa u isticmaasho web development waxyaaba badan oo aad u baahnayd inaad soo qaadato ayaa already la socda IDE-ga marka si fudud ayaad u isticmaali kartaa markaad sameynayso web development IDE-gaan isticmaali doono markaan baranayno Python programming-ka waxa weeyaan PyCharm marka hadda waxaan install garaynaynaa PyCharm
okay markaan rabno inaan install garayno PyCharm waxaan ku dhufanaynaa executablekaas aan soo download garaynay ayaan ku dhufanaynaa markaasaan install garaynaynaa PyCharm. Okay, next ayaan odhanaynaa next. uma baahnin inaan doorano laakiinse wuxuu kuu fududaynaya matalan waxaad odhan kartaa oo kale program kastoo ku dhamaada py extensionkaas ku fur PyCharm laakiinse uma baahin hadda inaan samayno oon ka soconaynaa next install marka installationki ayaa hadda bilowday dhammaan doonana insha allah. Okay, markuu dhamaado PyCharmka waxaa kusoo baxaya windowgan waxaad oran kartaa finish ama waxaad oran kartaa intaad select garayso run PyCharm community edition kabacdi finish wuxuu markaa run garayn doonaa programkii PyCharmkii. Okay, waxaan oranaynaa haddaad horey settings u haysatay waxaad oran kartaa settingkaas ayaan doonaya in isticmaalo laakiin waxaan oranaynaa inagu do not import settings. Okay, marka waxaan bilaabaynaa setting cusub ayaan gelin doonaa insha allah. Okay, markaad kusoo baxdo windowskan waxaad dooran kartaa new project ama haddaad already project aad haysato waxaad furan kartaa projectska laakiinse inaga waxaan dooranaynaa new project waxaad dooran kartaa locationka aad rabto inaad projectska ku shubto. waxaan isticmaalaynaa locationku hadda isaga inoo doortay waxaan u bixinaynaa python projects halkaasaan ku shuban doonaa programyadan qorayno. virtual environment wuxuu yahay dib ayaan uga soo noqon doonaa laakiinse hadda iska select garee wuxuuna automatically select garaynaya interpreterku waa programkii aynu install garaynay. waxaad aragtaan inuu pathkii iyo programkiiba halkan ku qoran yahay python.exe. Okay, create welcome script main aan iska daynaynaa inaga qori doono script. markaad dhamayso ku dhufo create. Okay, tipska close ayaan odhanaynaa. Okay, waa inoo diyaar hadda programkii PyCharm installationkiisii. haddaad rabto inaad pythonka qorto waa inaad marka hore file python aad samaysaa. halkan marka right click waxaad oranaysaa new file. haddaad file dhahdo kugu dari maayo extensionkii .py marka haddaad qorayso python file waxaa fiican inaad dhahdo waxaan rabaa python file waxaan u bixinaynaa kan test enter. marka waxaad aragtaa inoo sameeyey file test.py. pygaas wuxuu ku tusaya inuu programkan yahay python. haddii aadan markaa uu aragto inuusan programkaad qorayso py uusan la socon waa inaad ku darto haddii kale loo arki maayo editorka u arki maayo inuu yahay python program. waxaan qoraynaa marka print iska waran. Okay, print iska waran markaan qorno programka waan qornay marka haddaynu rabno inaan run garayno horta waa control s aan ku dhufanaysa un save garayno kabacdina waxaad samaynaysaa hab different ways ayaad u run garayn kartaa. waxaad samaynaysaa right click kabacdi waxaad ku dhufataa run file in python console. markaad ku dhufato waxaad arki doontaa inuu kusoo baxo codekii aad qortay. marka habkaas waad u run garayn kartaa. fileka dushiisa intaad istaagto ayaad isagana waxaad ku dhufan kartaa run test. marka waxaad arkaysaa isna programkii ayuu run garaynayaa. waxaad kaloo ku select garaysan kartaa halkan edit configuration. waxaad markaa dooranaysaa filekii aad rabti inaad run garayso test. okay kabacdina waxaad ku dhufanaysaa halkaas runkaas. waxaad aragtaa isna inuu run gareeyo. marka 3 hab ayaad u run garayn kartaa. habka ugu fudud waxa weeyaan inaad
codeka adoo dhex jooga aad right click garayso kabacdina run test aad dhahdo marka ku programkii halkaas aad ka arkaysaa resultigii. Sidaan hore idinku soo sheegay Python waxaa la socda editor la dhaho idle, marka dib baynu ugu noqonaynaa idle. Idle-ku wuxuu kuu fududeynayaa markaad waxyaaba si degdeg aad rabto inaad u qorto ama aad test garayso ayuu kuu fududeynayaa. Halka haddaynu ku qorno marka hadda matalan print hello ama iska waran, inaad run dhahdo programka uma baahnid, markaad ku dhufato enter markiiba waxaad arkaysaa resultigii. Marka inta badan markaad rabto inaad wax test garayso amaad eegto ood rabto jawaabta inaad si degdeg u hesho waxaad isticmaali kartaa idle-ka. Idle-ka nafs ahaantiisa xataa waad ku qori kartaa file haddaad dhahdo file new file. Filekan waxaan u bixinaynaa matalan save as, haddaan u bixino matalan test. Filekan waxaan u bixinay test, marka haddaan ku qoro halkaa print okay, halkan marka inaad save garaysay noqonaysaa control s ama aad dhahdo save kabacdina aad run garayso sidii pycharmka oo kale. Inaad marka waxaad tegaysaa run module ama F5 ayaad ku dhufan kartaa kabacdi markaad run garayso waxaa kuu soo baxaya resultigii. Haddaad markaa programmer qorayso idle-ka waad isticmaali kartaa ama inta badan pycharmka ayaad iska isticmaali kartaa. Okay, maadaama hadda waan dhamaynay installationkii Python iyo pycharm, waxaan kaloo fahanay inuu la socdo Python markaad install garaynayso idle. Idle-ka magac kale loo yaqaanaa jira oo la dhaho rebel. Haddaad ereygaa maqasho rebel wuxuu taagan yahay read, evaluate, print and loop. Marka faa'iidadiisa ugu weyn waxa weeyaan waa interactive computer programming environment. Markiiba wixii aad qorto expressionkii ayuu evaluate garaynayaa oo kuu soo saaraya resultigii. Sida matalan 2+2 markaad qorto markiiba 5 ayaa kusoo baxaysa, ama print iska warra markaad qorto markiiba iska warra ayaa kusoo baxaysa. Uma baahnid marka inaad programkii execute garayso ama run garayso. Halkaa waxaa inoogu dhammaaday installationkii. Aad iyo aad umahadsantihiin. Insha Allah waxaan is arki doonaa marka dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.